بسم الله الرحمن الرحيم. halka aad nagala socotaan daawadeen dhegeystayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV iyo raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. markana wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markuu wadatashi la sameeyay isla markaana dhageystay talooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shakhsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kala ah. mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriso waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda. mudane Xuseen Maxamed Nuur waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda. marwo Basma Cumar Axmed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta. aadan Sheekh Cali Fiidow waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogayaha guud ee gobolka Banaadirna loo magacaabay Cumar Cabdirasaaq Xuseen. wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmi ah loogu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku-xigeenadiisa iyo xogayaha guud ee gobolka Banaadir